Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada page-kayga Cabdishakuur Maxamuud Xasan oo aad hore uga barateen casharada anatomy-ga qaab muraajac ahaan in aan idinkugu celiyo ama si fudud in aan idinku fahamsiiyo. Waa mahadsantihiin sida aad channelka ugu xiran tihiin iyo casharada hore sida aad u daawateen. Taasna waxay ii muujinaysaa ama igu dhiirigelinaysaa inaan casharo kale soo duubo. Marka waana ku mahadsantihiin sida ay la socotaan. Waxaan rajeynayaa in aan isla socon doono. Casharkan waa casharkii 3aad ee ku saabsanaya anatomy and physiology-ga, taasoo marka aan ku sharxi doono jabtarada ugu horeeya ee qaybo ka mid ah. Jabtarkan wuxuu ka hadli doonaa maadaama anatomy uu ka hadli doono qaab dhismeedyada jirka sida u yaaliin iyo shaqada ay qabtaan. Waxaa hadda ka hadli doonaa marka anatomy sidiisa wuxuu ka bilowdaa meesha ugu yar ee ilma aragtada loo yaqaan ee unuga ama selka markii qofka uu fahmo ama uu barto kadib qofku wuxuu baran doonaa wax loo yaqaano tissue. Marka casharkan waxaa ku baran doonaa tissue maxaa la dhahaa, nudo, jirka qaybaha meelaha laga helo, qaybaha uu ka kooban yahay. Marka la dhahayo tissue ama nude marka la dhahayo waxaa waaye waa group of cells, waa dhowr unug oo isku tegeen kuwaasoo sameeyo qaab dhismeed isku mid ah iyo shaqo isku mid ay ka dhexeyso. Taas waxaa loo yaqaanaa tissue ama nude. Tusaale ahaan oo kale qaabka unugyada ay ka samaysan yihiin haddii ay isla ahaadaan, shaqada ay qabanayaan haddii ay isla ahaadaan, markay isku tagaana maxay sameynayaan tissue ama unug ama nude sameynayaan. Marka tissue markii la baranayo ama nudayaasha markii la baranayo waxaa loo yaqaanaa histology, barashada nudayaasha jirka ay ka kooban yihiin. Intaas waa isla fahanaa umaleynaa. Marka nudayaasha jirka uu ka kooban yahay 4 lagu soo koobaa bis. Epithelium waxaa loo yaqaanaa tissue loo yaqaan epithelium-ka waa midka meelaha ama xuubabka ku daharan meelaha ku daharan waxaa loo yaqaanaa epithelium loo yaqaanaa. Xuub walbo meel ku daboolan ama meel daboolaya waxaa loo yaqaanaa epithelium. Tissue kale waxaa jira oo loo yaqaano connective wuxuu isku xir macnaha waa unugyo waa tissue qaabilsan inuu isku xiro laba qayb inuu isku xiro waxaa loo yaqaanaa connective tissue. Muscle tissue waxaa waaye waa tissue-ga qaabilsan dhaqdhaqaaqa iyo muruqa. waa muruq aan naqaano meel walbo muruq uu ku jiro tissue uu ka kooban yahay waa gooni, waa qayb ka mid ah tissue-da jirka uu ka tirsan yahay. Mid kale waxaa tissue-ga loo yaqaano nervous tissue, waa jirka inuu control iyo dareen wadka iyo waxyaabahaas uu qaabilsan yahay. Marka 4tan qayb loo qaybiyaa tissue, waa tissue kastana shaqooyinkaas goonida ayuu qabtaa. Marka la fiirinayo tissue-ga inta badan isha looma arki karo, waxaa u baahan tahay microscope u baahan tahay. Markii la baarayana waa microscope-kaas lagu fiiriyaa oo isha caadiga looma arki karo. waa in cad la soo gooyo, cadkaas la qaybiyo kadib range iyo midab la mariyo kadib marka waxaa la ogaan doonaa tissue-gan qaabka uu yaalo. qaybta koowaad haddii aan ku hormarno oo loo yaqaano epithelial tissue, tissue-yada qaabilsan inay jirka daboolaan. Jirka qaybihiisa inay daboolaan tissue-yada qaabilsan haddii aan ku hormaro waxaa loo yaqaanaa epithelial tissue. maxay yihiin marka qaabkay u samaysan yihiin, shaqada ay qabtaan maxay tahay. Epithelial tissue macnaheedu waxay tahay waa laid on ama covering, shay meel ku daharan ama shay meel daboolayo. Marka tissue-yada waxay qaabilsan yihiin in ay daboolaan meelaha intee daboolaya marka arki doonaa. Qaabka uu samaysan maxay tahay
macnaha wuxuu daboolaa ama darbi u yahay xuub ka jilicsan. Tusaale ahaan oo kale shaqada uu qabto maxay tahay in uu ilaaliyo meesha uu daboolayo ama uu dahaarayo inuu ilaaliyo. Sidoo kale tissue wuxuu qabtaa absorption inuu sameeyo in uu wax nuugo. sidoo kale tissue wuxuu sameeyaa sidoo kale filtration wax buu nadiifiyaa. sidoo kale tissue noocan waxay qaabilsan yihiin secretion inuu dheecaan soo daayo inuu ilaaliyo meesha uu ku daboolan yahay iyo meesha uu ku daboolan yahay inuu wax nuugitaan ka sameeyo. sidoo kale filtration inuu sameeyo meesha uu ku dahaaran yahay inuu filter sameeyo wax uu nadiifiyo oo wixii soo galaya inuu nadiifiyo. intaas shaqo ayuu qabtaa tissue-gan meelaha daboolaya. waxyaaba sida gaarka loogu yaqaan maxaa kamid ah polarity wax loo yaqaan. polarity maxaa waaye apical surface, macnaha daboolkiisa wuxuu macnaha waxaa inta badan korkiisa laga helaa waxa loo yaqaano cilia ama macrophyllae waxyaa fiilooyin ama cilia wax loo yaqaan laga helaa dushiisa. qaybta kore waaye. qaybtiisa hoosena waxaa loo yaqaanaa meel ayuu ku dhagan yahay, macnaha waa basal surface. qaybta banaanka soo xigto waxaa lagu yaqaanaa waxay leedahay duf iyo wax lamid oo kale. qaybta dambena meel uu ku dhagan yahay dabeecadda suu leeyahay. marka dabeecadda kale loo yaqaan waxaa kamid ah tissue-gan waa mid isku dhagan sida darbiyada isku dhagan kala camal sida sawirka meesha ka muuqdo. kan iyo kan ciidda waa isku dhagan yihiin wax u dhexeeya malaha, si fudud macnaha isku dhagan yahay. waxyaaba kale loo yaqaan waxaa kamid ah inta badan waxaa caawiyo tissue kale loo yaqaan oo connective isku xirka caawiyo kaligiis meel ma taagnaan karo sababtoo ah meel ayuu ku dhagan yahay. waxaan ku dhajinayaa tissue kale oo connective ku dhajinayo. wax kale loo yaqaan waxaa kamid ah waa no blood supply, wax dhiiga ama xidid oo meeshaas oo ku badan ma lahan sababtoo ah wuxuu ku tiirsan yahay diffusion wax loo yaqaano iyo tissue ku dhagan ayuu dhiig ka helaa. asiga xididda lagama helo inta badan tissue hadda ka hadlayno oo epithelium-ka. sidoo kale wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan regeneration. haddii tusaale epithelium-ka maanta uu baaba'o dib uu soo dhalan karaa. marka meeqaa loo qaybiyaa epithelium-ka? simple iyo stratified loo qaybiyaa markii loo fiiriyo layerada uu ka kooban yahay, lakabyada uu ka kooban yahay, mid simple ah iyo mid stratified oo arkeena. simple macnaheedu waxay tahay wuxuu ka kooban yahay hal layer, waa hal line bis, macnaha khafiif waaye. stratifiedna maxaa waaye waa mid dhowr line oo iskor saaran waaye. kan waa qaybta banaanka soo xigto, qaybtan waa qaybta oo gudaha xigto, waa dhowr line. marka loo fiiriyo qaab ahaan qaabka uu kooban yahay squamous aa loo yaqaana mida afar geeska. cuboidal waxaa waaye waa kana qaabka baashan uu kala u kooban uu dheer yahay wax yar. columnar maxaa waa column camal waa mid aad u dheer, midu aad u dheer yahay. tan waa salki, intan waa madaxi meesha banaanka soo xigto waaye, kan aad u dheer yahay. saddexdan qaab ahaan marka la fiiriyo saddexdan qaab waaye. markii la fiiriyo lakabka uu ka kooban yahay midna waa hal lakable, midna waa dhowr lakab ka kooban yahay. tusaale ahaan waa kana epithelial tissue. simple markuu yahay waa kana simple cuboidal waa kana uu aad uma dheero. kana maxaa waaye simple columnar maxaa waaye aad u dheer yahay tissue unugyadu ka kooban yahay. kana simple squamous waaye waa hal layer waaye. kana maxaa waaye stratified squamous waa dhowr layer waa iskor saaran. kan marka la fiiriyo mana dheero, afar geesna maaha, waa simple squamous. kanna waa simple squamous laakiin lakabyada uu ka kooban yahay badan. qaabkaas u kala duwan yihiin. marka tusaale intee laga helaa marka tissue-da aan soo sheegaynin intee laga helaa oo meelaha daboolaya. tusaale ahaan darbiyada oo xididada sida iyo darbiyada oo sanbada. tissue laga helo maxaa loo yaqaanaa simple squamous.
muxuu qabanaa marka in nutritionka uu ka gudbo wasaqda iyo hawada inay ka gudubto fududeynaa sababtoo waa hal layer waana simple hada sida sanbabka oo kale ee xididada dhiigga ku dhaxa dushooda laga helaa macnaha uu ku daboolay markii xididka gudihiisa la fiiriyo xub ku daaran maxaa loo yaqaanaa simple squamous loo yaqaanaa mar walba waxaa xasuusnataa simple squamous stratified squamous macnaha waa hal layer leh stratified maxaa waaye waa dhowr layer ayuu ka kooban yahay maxaa kana marka fiiri simple squamous marka la fiiriyo layerada markuu dhowr layer ka kooban maxaa waaye stratified squamous tusaale ahaan maqaarkeena caadiga oo kale afka oo kale iyo xubinta taranka vagina laynka ku daboolan ama xuubka ku daboolan maxaa loo yaqaanaa waa stratified squamous waa dhowr layer ayuu ka kooban yahay macnaha si wax ugu gudbaan waa macnaha ma fududa macnaha inay wax gudbaan ma fududa muxuu qabtaa marka wuxuu difaacaa meesha inay xoqanto jirka meesha inay qalasho infectionka waxyaaba soo kortaga maadaama uu yahay dhowr lakab uu ka kooban yahay lakab ahaan marka loo fiiriyo simple squamous waa hal lakab leh xuubkan waxaa gudbi karo kana maxaa waaye waa stratified squamous inay wax gudbaan ayuu ilaalinaa waa laba nooc marka loo fiiriyo qaabka marka shape ahaan loo fiiriyo waa simple cuboidal iyo stratified cuboidal shape ahaan marka la fiiriyo afar gees camal waaye tusaalahaan waxaa laga helaa noocan darbiyada oo kelida oo kale iyo tubooyinka kelida iyo qanjirada oo kale gudaha xuubka ugu daboolan maxaa loo yaqaanaa waa simple cuboidal waaye simple cuboidal macnaha waxaa waaye kan hal layer waaye hal layer la waaye simple maxaa dhahna mar walbo layer ahaan marka loo fiiriyo simple iyo stratified waaye hal lakable iyo dhowr lakable maxaa waaye hal lakable waaye simple cuboidal waaye qaabkan uu kooban yahay muxuu qabtaa dheecaan uu soo dayaa waxna wuu nuugaa biyaha waxyaaba jeeriska uu nuugi karaa waxna wuu soo daynaa waxna wuu nuugaa sida keliya oo kale xuub ku daban marna waa stratified cuboidal waaye waa cuboidal laakiin oo dhowr lakab yeesha waaye inta laga helaa dhuuntoo kale iyo taraakiyaha hawo mareenka cunno mareenka qanjirada oo soo daaya dhididka xuub ku daboolan maxaa loo yaqaanaa waa stratified dhowr lakab leh oo shapekan leh waa qaabka afar geeska leh waa markuu yahay lakabka marka loo fiiriyo shape marka loo fiiriyo markaan shapekan uu leeyahay dhowr lakab shapekan dhowr lakab kana kuu soo haray simple columnar waa midka ugu dheer jidda inta waa salka waa qaybta gudaha qaybta banaanka waa aad u dheer yahay jidda digestive organska hunguriga caloosha meelaha oo dheefshiidka mindhicirada xuub ku daboolan maxaa loo yaqaanaa simple columnar muxuu qabanaa markaas nafaqo waxyaaba ayuu nuugi karaa dheecaan wuu soo saari karaa waxna wuu nuugi karaa dheecaan wuu soo saari karaa waa mid dheer jidda in wax nuugaa loogu talagalay stratified markuu yahayna maxaa waaye dhowr lakab uu ka kooban yahay jidda meeshan waa salki intan waa meesha oo banaanka soo xigto oo xuubka meeshiisa oo banaanka soo xigto waaye tan waa meesha uu ku dhegnaa waaye larynx oo kale hawo mareenka oo kale iyo asiga muxuu sameeyaa dheecaan uu soo daabisa laakiin wax lagama nuugo saddexdan qayb marka u kala baxaa sida aan sheegnay tissue-yaasha jirka marna waxaa loo fiirinaa lakabka oo markuu yahay simple marka loo fiiriyo mar waxaa loo fiirinaa lakabyada uu ka kooban yahay marna waa simple haddii hal lakab ka kooban yahay maxaa waaye waa simple dhowr lakab hadduu ka kooban yahay maxaa waaye stratified squamous waxaa waaye midka afar gees yar cuboidal maxaa waaye afar gees yar oo dheer waaye columnar waa midka ugu dheer simple waa kana
iyo stratified. Simple waa hal lakab leh, kuwaan oo dhan maxaa waaye hal lakabay ka kooban yihiin. Simple, squamous, simple, cuboidal waa hal lakab. Midu kan waa banaanka, intana waa gudaha meesha basementigiisa, wax u dhexeeya ma leh, lakab kale ku saaran ma leh. Simple columnar waxaasna waa hal lakab, kana waa dhowr lakab. Mida kow lakab, labo, saddex, macnaa meesha uu ka bilaabanayo ku dhagan yahay iyo banaanka dhowr lakab waaye, waa stratified alarmkaas. Kana saas oo kale, kana saas oo kale. Afartan saddexdaas qeybaa loo qaybinaa tishuyada, marna labaa loo qaybinaa waa layer. Marka loo fiiriyo maxaa waaye layer ahaan marka loo fiiriyo simple iyo squamous u kala baxa. Shape ahaan marka loo fiiriyo maxaa waaye cuboidal, squamous, cuboidal iyo columnar. Intaasaa marka loo kala qaybinaa. Waa kana fiiri. Simple haddii aad maqasho maxaa waaye waa hal lakab leh. Simple squamous waa hal lakab, simple cuboidal waa hal lakab, simple columnar waa hal lakab. Kana waa isku dhex jirta transitional. Stratified maxaa waaye stratified kow lakab, laba lakab, dhowr lakab uu ka kooban yahay. Meeshaan waa basementiga meesha ka bilaabanayo, intana waa banaanka. Stratified cuboidal maxaa waaye kow lakab, laba lakab. Midu pseudo stratified columnar maxaa waaye kow lakab, laba lakab. Macnaha wuu ogyahay stratified ku ogyahay dhowr lakab la waaye wuu ogyahay. Simple epitheliumka muxuu qabtaa marka oo hal lakab lah. Simple squamous waa hal lakab leh oo ka kooban unugyadan gaagaaban. Simple cuboidal maxaa waaye unugyada xoogaa dhaadheer. Simple columnar maxaa waaye unugyada ugu dhaadheer oo hal lakab waa kulligood. Intaan macnaa shaqada ay qabtaan maxaa kamid ah in ay wax nuugaan, waxbaa laga nuugaa. Secretion dheecaan way soo daayaan. Filtration maxaa waaye hawada iyo waxyaabay nadiifiyaan. waa very thin, waa aad khafiif, mida aad khafiif ah. In ay wax gudbaan wax soo daayo waa fududaane. Shaqadaas oo labada shaqo oo muhiimsan u qabtaa marka tissue noocaas. Waana kana qaab ahaan marka la fiiriyo. Simple iyo maxaa waaye squamous. Simple waa hal lakab la waaye. Qaybtan waa banaanka, intana waa meesha uu ka bilaabanayay. Kan waa cells-ki mida. Meeshaan waa meesha basementiga meesha uu ka bilaabanayo, intana waa banaanka. Kan waa basementiga, intana waa banaanka. Simple waa kaas marka. Squamous maxaa imaanayo dhowr lakab uu yaala maano. Waa filtration inuu wax nadiifiyo iyo diffusion waxa la in ay wax soo gudbaan. Tusaale ahaan kale darbiga oo xididada yariiska oo loo yaqaan capillary ama tiftaafyada. Hawo iyo dheecaan iyo dhiiga aad dhex dusi karo. Sida in hawo marka la joogo sanbabadan meesha hawada isku bedesho air sac waxa loo yaqaano wuxuu ka kooban maxaa waaye waa simple squamous. Hawa ka gudbi karto macnaa. Kilidoo kale markii oo kaada ama jirka markii la filter garanayo dhiiggan oo kaadi iyo loo kala saarayna in dhiig iyo wixii dhex gudbaan afudaan macnaa afud sababtoo leerkiisa yar. Midu waa kana fiiri khafiif waa leerkiis, khafiif waa leerkiis waxa gudbi karo. Simple waa. Simple cuboidal maxaa waaye isna inuu wax soo daayo iyo wax nuugo. Tusaale qanjirka oo candhuuf soo saaray tubooyinka keliya oo keliya nadiifiyo. Darbiga oo ilmo galeen macnaa ovariga ku xansidayaasha. Waa kana mida darbiga waa kana. Simple waaye hal lakab mida hal lakab ku kooban. Haddana cuboidal waaye oo afar gees waa mida ma fidsan. Waa kana qaybtan waa meesha macnaa basementiga meesha uu ku dhagan yahay tissue-gaas. Kana waa line-kii oo soo xiga banaanka. Midu dheecaan ay soo deynayaan sidoo kale waxbaa laga nuugaa. Waxbay soo deynayaan. Kii kale ku dhagana waa kaas saas u soconayaan tissue-da. Simple waaye laakiin columnar maxaa waaye qaabkiisa waa hal layer leh laakiin meesha uu ka bilaabanayo mida uu dheer yahay kana waa meesha oo banaanka xigta waaye. Sidaa dheheen simple midka hore oo squamous-ka clear waaye. Simple cuboidal waxaa waaye kan labadiisa waaye. Kana maxaa simple columnar maxaa waaye uu dheer yahay. Kulligood laakiin waxay ka sameeyeen hal layer waaye. Haddii simple ama qashad waa hal layer. Shaqooyinka uu qabto maxaa kamid ah
in wax laga nuugo. Haddii inta wax ay soo galaan wuu nuugi karaa. Sidoo kale secretion dheecaanay soo daayaan ayagan. Tusaalaha maxaa ka mid ah digestive tract oo kale, mindhicirada waaweyn, mindhicirada yaryar, caloosha kulli xoog ku dahaaran maxaa loo yaqaanaa waa simple columnar. Dheecaanna way soo daayaan, waxna waa laga nuugaa. Waxayna leeyihiin sidoo kale cilia waxa loo yaqaan duf ama tima yariis. Mucous membrane waayo macnaha mucus ayuu soo daayaa. meesha in mucus uu soo daayaa waxaa waaye meesha inay jilicdo macnaha u fududeynaa. In meesha ay jilic noqoto ayuu fududeynaa maadaama wax soo deynayo. Saddexda nooc waa soo marnay oo hal layer ah. mid waxaa jira oo u eg marka hal layer leh mise laba layer leh, waa kan isku dhex jiraan jiddo. Hal layer waa loo maleeyaa, dhowr lakab inuu ka kooban yahay waa loo maleeyaa. u imaana marka midka dhowrka lakab leh stratified squamous, stratified cuboidal. Kan maxaa waaye squamous dii aad maqashid kow lakab dhowr lakab iskor saaran, meesha uu ka bilaabanayo marka iyo meesha banaanka dhowr lakab u dhexeeyo macnaha khafiif ma ah. Kanna waa laba lakab jiddo khafiif ma ah. waa 2 plus layer, laba layer iyo wax ka badan waaye. Shaqada ugu badan muxuu qabtaa xitaa inuu wax difaaco waaye maadaama wixii ku dhaco asiga muu soo gudbi karaa macnaha xubintii oo uu ku daharnayo ilaalinaa marka maadaama uu adag yahay oo dhowr lakab uu ka kooban yahay. Tusaalahaan waa kan stratified squamous. Meeshaan waa basementiga, intan maxaa waaye waa meesha banaanka. Wixii inta ku dhaca marka in ay gudbaan way adag tahay sababtoo ah layerkii aad u ballaaran dhowr lakab uu ka kooban yahay. waa kan kanoo kale fiiras meeshaan waa banaankii dhowr lakab uu ka kooban yahay. waxyaabaha haddii meesha inta kale la xoqo kale iyo ma gudbaa macnaha. tusaalahaan oo kale haddii wax oo kulul oo kale inta gaaraan si u gudbo adagta maadaama dhowr lakab uu ka kooban yahay. hunguriga kale ka mid ah, afka kale ka mid ah xoog ku dahaaran, maqaarkan caadiga xoog ku dahaarna ka mid ah. waa stratified squamous waaye dhowr lakab leh waaye. cuboidal maxaa waaye afar gees yaroo kii hadda ayuu ka ballaaran yahay. waa dhowr lakab haddana usually waa laba lakab uu ka kooban yahay asiga. tusaalahaan qanjirka oo dhididka oo kale, qanjirka oo naasaha iyo qanjirka oo candhuufta soo daayo. meeshaan aan ka soo qaadno waa qanjir oo soo deynayo candhuufta. xoogkan uu ka kooban maxaa waaye stratified waa dhowr lakab iskor saaran waaye. meesha uu ka bilaabanayo iyo banaanka inta u dhexeyso. cuboidal waayo wax yaroo kii yaroo ka ballaaran yahay. tusaalahaan sweet gland qanjirka oo dhididka soo daayo. meeshaan dhididkii aa ka soo baxayo. waa kana marka qanjirka dhididka soo deynayo inta. esophageal gland hunguriga aan fiirino waa kana midzo. columnar kuyan maxaa waaye wuu dheer midzo. kan waa meeshuu ka bilaabanayo, intan waa banaankii waaye. meeshuu ka bilaabanayo marka uu soo dheer yahay. kan oo kale fiiri meeshuu ka bilaabanayo wuu dheer yahay.